السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walaalaha garabahayga oo ku soo dhawaada wehelkii dunida iyo waxtarkii bulshada aniga waxaan ahay Xafsa halka aad naga daawaneysano Xafsa channel ala barnaamijkan waxaan soo gudbisay islaaniga walaashin xasiid soo dhawaada meel kasta aad joogtiin daafaca caalamka galooda Soomaaliya waxay rajaynaynaa caafimaad qabtaan insha Allah waxaynu soo socday kitaabkeena imtixaanaha ee la magac baxay baro boqol xadiis hase yeeshee intaan u gudagalin darsigeena maanta ugu horreyn haddii ay tahay marka ugu horeysa aad channelka booqatay please subscribe saar haddii aad hore noo joogtaan like saar u share gari asxaabtaada oo la wadaag nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay waxaad naftaada la jeceshahay la jeclo walaalkaaga kusoo dhawaada maantii muuqaal cusub iyo darsigeeni 85aad biidhnillah bismillah عن بعض أزواج النبي رضي الله عنهن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة رواه مسلم قار كمدا حاسسك النبي الله كرال نقضي وحي كبريا النبي صلى الله عليه وسلم إنو دهي من أتى عرافا فسأله عن شيء قفكي أتغى فاللو وحويدية وحون ويدية لم تقبل له صلاة 40 ليلة سلاديس لغما أقبله أفرتن مع الموت لغما أقبله سلاديس يعني قفكي تغفى للوغا وح ويدية أو دها وح بريد عدونا أما وح سو سعود ويديس وح إلهي شخو كليا ويديس وح سو سعودي وح بريد عدونا الله سبحانه وتعالى كليا يا قفكاس أو يعني أتغو سيداس لها أفرتن هوين سلاديس أفرتن مع سلاديس لغما أقبله يوم xadiis kala jiro oo sheegaya qofkaas yani hadii faalalo wax uu sheegay rumaysto uu bagaaloobay diintu ka baxaya laakiin qofkii wax weydiiya haduu wuxuu weydiiyana oo loo sheego uusan aaminin oo rumaysanin salaadiis lagama aqbalayo kan rumaystay oo qaatayna diinta uu ka baxaya uu gaalooya inuu mar labaad soo islaamaa marka waa khatar arinkan iska ilaaliya qaar kamid ah xaasaska nabiga Allah karaal noqday waxay ka wariyeen nabiga kaleey salaatu salaam inuu dhahay qofkii u taga faalalo wax weydiiyo shay wax uun weydiiya lam tuqbal lahu salaatu lagama aqbalay salaadiis 40 leylatan 40 maalmood salaadiis lagama aqbalayo insha Allah waxaan rajeynayaa inaa wax badan fahamteen waa idin karaal galinayaa maadaama muuqaalka idin ka soo daayay waxaan soo dhaweynayaa asxaabta cusub ee nagu soo biirtay channelka soo dhawaada gacmo furan niyad saafiya iyo qalbi furan insha Allah waxaad ka daawan doontaan muuqaalo idin farxad geliya idin xiis geliya qalbigana idin qaboojiyo guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabeynaa muuqaalkayga maanta waad ku maasantahay daawashada muuqaalkayaga sidoo ku maasantahay subscribe saarta assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh istacin billaah walaa tacajal